Assalaamu calaykum. Dunidu hore ayay u soconaysaa. Dadkuna kama daalayaan inay wax cusub barkaan ama dhagahooda ku maqlaan. Tiknoolajiyada waa wax ugu weyn oo horumarka u suurtagelinaya dunida maanta, waxayna door muhiim ah kaga jirtaa nolosheena. Sanad waliba dhamaadkiisa waxaa la soo bandhigaa wixii ugu waaweynaa ee tiknoolajiyada ee la ikhtiraacay sanadkaas. Maanta waxaan kuu sheegayaa 5 waxyaabood ee ugu waaweynaa tiknoolajiyada kuwa oo horumar weyn laga sameeyay sanadkan 2018. waxaan dhammaanteen garanaynaa waxa uu yahay printer. waan isticmaalnaa mar walba. sidoo kale waxaa jira 3D plastic printer ka oo la sameeyay 1981. printerkan waxa uu daabacayaa 3D plastic ah oo micnaheedu ah inuu daabacayo shay ka samaysan plastic ka oo leh 3 dhinac. tusaale sidan oo kale, shaygan waxa uu leeyahay 3 dhinac. wax walba oo 3 dhinac leh waxaan ugu yeeri doonaa 3 dimension ama 3 dhinac leh. 2018 waxaa la ikhtiraacay printer daabacaya 3D ka samaysan bir ka oo ku daabacaya noocii aad doonto. waxa uu ku shaqeynayaa software. waxaad dooranaysaa qaabka aad rabto in lagugu daabaco, kadibna waxa uu ku soo saarayaa qaabkii aad dalbatay oo ka samaysan bir. waa tiknoolajiyad run ahaantii awood badan. waxaa la rajeynayaa in mustaqbalka dhow uu noqdo mid qof walba awoodi doono oo raqiis ah. Tiknoolajiyadan waa mid la sameynayo caqli qiyaali ah. horey waxaa loo sameeyay mashiino caaqil ah kuwa oo leh maskax ay wax ku dareemaan kuna qiyaasaan. 1980kii ayay ahayd markii laga guulgaaray sameynta tiknoolajiyadan. waxaana la sameeyay mashiino yaryar kuwa oo ahaa caawiyaal. waxaana ugu caansan Google Home, Siri iyo Alexa. Okay, Google, why did Google make you? Google made me to help you. Okay, Google, Alexa, set a timer for 10 minutes. Okay, 10 minutes. Starting now. What time is it in Zanzibar? The time in Zanzibar, Tanzania is 1:05 a.m. on Friday. Next question. Turn off the lights. You got it. Turning 2 lights off. Okay, great job, guys. But now I can't see anything. Turn on the lights. maadaama soo iibsashada mashiinadan qaali yihiin, waxaa 2018 shirkadaha Amazon, Google iyo IBM iyo Microsoft ku fikirayaan in ay sameeyaan applicationo isticmaalaya caqligan qiyaaliga ah ee bini aadamku sameeyay, kuwa oo yaala kaydka daruuraha ee shirkadahan ugu waaweyn tiknoolajiyada adduunka si ay dadka oo dhan u isticmaalaan. tiknoolajiyadan waa mid awood u leh in ay keydiso badqabka xogta internetka, waxayna ku shaqeynaysaa cryptocurrency oo ah qaab cusub oo lacagaha online-ka ah. systemkan oo ku base garaysan ilaalinta xogta gaarka ah ayaa macquul ka dhigaya in iibka dijitaalka ah ee lagu sameeyo internetka la keydiyo ama la saxo, iyada oo la ilaalinayo xogaha gaarka ah iyo aqoonsiga qofka si xogta ama lacagaha loogu kala bedesho qaab online ah. waxaa malaayiin doolar lagu kala iibsadaa internetka daqiiqad kasta, waxayna ku jiraan khatar ah in la jabsado ama la xado lacagahaas. waxaa horey dhib badan kaga taagnaa xatooyada internetka ka dhaca oo gaaray meelihii ugu sarreeyay, laakiin tiknoolajiyadan ayaa la filayaa inay aad u yareyn doonto jabsashada internetka ka dhacda. waxaan joognaa sanad ay macquul tahay in tiknoolajiyada qiyaasto ama sheegto mustaqbalka qofka iyada oo ka eegaysa dhanka hidasidaha, sida in qofku hiddo u leeyahay cudurrada macaanka iyo kansarka, iyo sheegidda IQ-ga qofka. culimada sayniska waxay noo sheegaan in dabeecadaha iyo xanuunada qaar uu raaco hiddaha uu qofka ka dhaxlo waalidka. 2018 waxaa suuragal ah inaad qiyaasto waxa aad ka dhaxashay waalidkaaga oo hiddahaaga ku jira.
gawaari iskaxeynaya. Tiknoolajiyadan waa gawaari aan loo baahnayn darawal si loo kaxeeyo. Waxa uu ku shaqeynayaa software iyo sensors dareemayaal. Waxaana loo yaqaanaa autonomous oo ah gaari wada la'aan ah. Inkastoo hadda si toos ah loo hirgelin isticmaalka gawaaridan, waxaa la rajeynayaa in sanadkan ama sanadaha xiga la isticmaalo gawaaridan. Faa'iidada tiknoolajiyadan waxa ugu weyn qiimaha gaarigan oo yar, ammaanka gaarigan oo aad u fiican, iyo in uu yareyn doono jaamka faraha badan ee adduunka oo dhan laga cabanayo.